assalaamu calaykum. waxaan ahay qaasim maxamed. ku soo dhowow muuqaal kale. ugu horrayn asxaabta sharafta badan, dhammaantiin waxaan idinkaaga cudur daaranayaa maqnaashihii koobnaa ee aan idinka maqnaa maalmihii lasoo dhaafay. mashquul saa'id ah oo igu soo kordhay awgiis, waxaan si gaar ah halkaan uga mahadcelinayaa asxaabtii sida gaarka ah ila soo xiriirtay si ay xaaladeyda wax uga ogaadaan. allaha idin wada sharfo dhammaantiin, mahadsanidin. mar kale ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta. naftaada qaabeeyaheeda, kobciyaheeda iyo barbaariyaheeda intaba waa adiga. qofna ma qaadanayso mas-uuliyadda xumaan aad adiga geysatay, sidoo kalena qofna ma qaadanayso wanaag aad adiga beeratay. sidaasi darteed marnabaha ku darsan qaamuuska noloshaada ku dhaqanka sifooyinkan xunxun ee soo socda. ballandarrada. dadka aan la dhaqanno waxaan kula macaamilnaa hadba qofka dabeecadaha iyo dhaqamada aan ku naqaano, waxaana ku tixgelinaa qofba tayada shaqsiyad uu leeyahay. ballandarradu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu horreeya ee kaa dhiga qof markasta bahdilan oo aan lagu kalsoonaan, la aaminin, wax laga dhagaysan, laguna soo qaato tusaalooyinka xunxun. isku dirka. diinteenna waxyaabaha ay in badan nooga digtay ayay ka mid tahay isku dirka iyo iska horkeenidda dadka isku wanaagsan. inaad dad iska horkeentaa oo aad sabab u noqotaa kala shakintooda iyo kala fogaanshahooda waxay dhaawacaysaa shakhsiyadaada, waxayna booskaaga diyaarinaysaa naarta. waxay booskaaga diyaarinaysaa naarta marba haddii aad ku dhaqaaqday. beentu waxay ka mid tahay noocyada dabeecadaha ugu xunxun uu yeesho ama uu ku sifoobo qofkeen. beentu iyada oo nuucyo badan leh misena kala khatarsan tahay, nuuca ay doonto ha ahaatee, uma fiicno qofkeen inuu caadaysto dhaqanna uu ka dhigto beensheegidda, sababtoo ah waxay abuuraysaa in aan waxba laga rumaysan oo aan la qaadan hadalkiisa si kastuu run u yahay. soomaalideenii hore waxay ku mahmaaheen beentaada hore runtaada dambe ayay u baasbaxdaa. eedsheegashada iyo calaacalka waxay ka turjumaan daciiftinimada qofka, oo marba haddii aad eedsheegasho iyo cabasho badan tahay, waxaa ku dhibsada qof kasta oo waxaa laga naxaa aragtidaada. balaayotirinta iyo cabashada badan waxay baalmadow kugu qoraan inaad tahay qof daciif ah oo aan arrimihiisa xallisan karin. xugminta dadka. in qofkii aad wax ku aragtaaba aad xukun ku riddaa waxay tilmaan ka bixinaysaa aragtida daciifka ah ee aad leedahay. wax haddii aad aragto ha ku fududaan ee hubso ka hor inta aadan xukumin. waxaana tusaale kugu filan sheekadan yar. waxaa tariin wada saarnaa wiil da'da 20 jirka ah iyo aabbihiis. wiilka aad ayuu u faraxsanaa, wuxuuna fiirinaya daaqadaha tariinka isagoo ku qaylinayo, aabba fiiri, geedaha way socdaan, waynala dhaqaaqayaan, fiiri aabba siday u socdaan, way qurux badan yihiin. kadib waxaa dhibsaday oo la yaabay qayladii iyo boodboodkii wiilka. nin ka mid ahaa rakaabkii saarnaa tariinka oo ag fadhiya wiilka iyo aabbihiis, wuxuuna la soo booday, waa maxay wiilkan intaan la eg oo u dhaqmayo sida carruurta oo kale? war naga aamusi wiilkaaga. aabbihii wiilka dhalay oo dhoolo caddeynaya ayaa ugu jawaabay ninkii, wiilkayga waa maalintii ugu horraysay uu wax arko. hadda ayaan ka keenay dhakhtarka indhaha oo indhaha ayaa loo soo fiiqay, waana markii ugu horraysay uu wax arkaayo. kadib ninkii ayaa naxay oo xishood dareemay ilaa indhihiisu ay ilmeeyaan, raaligelinna uu ka bixiyey hadalkii uu ku hadlay. sidaasi darteed aad bay muhiimkuugu tahay inaadan xukumin dadka iyo xaaladaha aadan waxba ka ogeyn. ugu dambeyn, inaad yeelataa dabeecado wanaagsan oo ka tarjumaya shakhsiyadaada ayaa kaa dhigaysa inaad ahaato qof boos wanaagsan ku leh dadka wanaagsan qalbiyadooda. hagaag, inta aan goordhow ku wada kulmi doono muuqaalka xiga, waxaan rajaynayaa inaad wax un ka faa'iiday muuqaalkan, aadna ku dabaqi doonto naftaada. waadna ku mahadsan tahay la socodka, ku xirnaanta, sii gudbinta iyo dhiirigelintaada barnaamijyadeenna. mahadsanid.